niman kale loo kordhiyay haddii la bidi kiilay la duwaaga wadani anu ku sheegay guurtii duwaaga wadani duwaaga wadanko horta deeyaga isu kordhiyay kuwana waxa ay boob yaa wadani baarlamaanka iyaguna anu xilligii aanu dooray baarlamaanka u dhamaaday iyaga isu kordhiyay cod kale anaga siinay waxaan isu kordhiyay awoodda meel ay deeq karaan oo garan mayno guurtan 3 sanadood isugu xaquuqday 15 aan dhacaynba iyo baarlamaankan 15 sano in haystay waxa gudub weyn ma wax loo baahnaa ma helin hal sano ka dambeeyaan baa helin laba sharci ma taas waa غير ما دونا مدكرنتا in markii la soo gabagabeeyaan doonayna waxba ma ogoli maxaan mudakar bina gobolada la mid yahay maalin bad waslad buu leeyibiyay oo maalin buu meel yar buu leeyibiyay imka waxba wana way harin xabaali uu kuraayo baa noo hadhe isbedel ma keebinaya wasladaayagi isbedel baa noo harin baa heer berbero isbedel baa ma harin waa qolfal lugaynaya waxa weeyaan mudakar ma ogolaan anagu wixii isla qaateen saddex isba qaran iyo commission wax dhaafsiisan ma ogolin waxa weeyaan waxaan wata ninkan sanadaan baa wata arintan kaligiina iska wata marka anigu saasaan ku soo horjeeday dhalinyarada maanta waxa tahriibinaya waa mudakurnta badan ee soo noqonaysa haddaan sidan wax laga bedelina xukuumadda maanta talada haysa waxay kalifaysaa in dadweynaha reer Soomaaliya ay soo dhaweeyaan farmaajo mudakurnta ay guurtu samaysay waxa weeyaan horta dhexda istaagtay mudakurnta dee qaybna way ku talax tagtay qaybna bartanka istaagtay waxa weeyaan mudakurnta madaxweynaha loo sameeyay haddaanu nahay bulshada reer saaxiibona soo dhaweynayna shacabinaha gobolka saaxil ku nool waxaanu ka soo horjeednaa mudakurnta loo kordhiyay golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida maadaama golaha baarlamaanka xukunkoodii dhowr jeer dhamaaday oo aanu hayn golo baarlamaan oo ku fadhiya sharci dhowr jeer hore waa loo kordhiyay baarlamaanka maanta Soomaaliland xukuma ma mid lagu kalsoonaan karo waa mid ku soo foorray barbare iibiyeen waa mar uu degadii wareejiyo waa mar uu haamii waxaan ku wareejiyaa waa mar ay waxaan ku military ugu yeedhaan waxaan ka soo horjeednaa mudakurnta waxaan u sheegaynaa dhammaan cid kasta ay qoysaso mudakurntu waxaan u sheegaynaa golaha guurtida waxaan u sheegaynaa mudane Saleebaan in ay halka dib u eegaan dhalinyarada ku nool reer berbera oo ku soo horjeeda mudakurntin way waxaan doonaysaa isbedel dhaba